gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani Ilaanta Hoolan Maxamed Yuusuf Hurre oo maanta wareysi gaar ah siinayay telefishinka ayaa hambalyo ku saabsan Ciidul Fitriga awgeed u diray ummadda Islaamka ah iyo weliba shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Haddaba waxaa khadka si toos ah hadda ugu jira gudoomiye Maxamed Yuusuf Hurre. Gudoomiye markii hore waa ku soo dhaweynayaa bal waxaad nooga warantaa wareysigaagan iyo waxa uu daaran yahay. marka hore anigoo ka faa'iideysanay chance-kan qaaliga waxaan dhammaan Ciidul Fitriga awgeed diraya ummadda Islaamka meel kasta joogto tafaadiliga ka joogto. marka labaadna waxaan hambalyo u diraya Ciidul Fitriga awgeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirada baarlamaanka golaha guurtida iyo ciidamada kala duwan ee qalabka Jamhuuriyadda Somaliland iyo xisbiyada mucaaradka wadani iyo ciid iyo shacabka reer Somaliland meel kasta gaarta dunida ka joogaan waxaan leeyahay ciideeda bashbash iyo barwaaqo. marka labaad waxaan aad iyo aad fitriga awgeed aan ka faa'iideysanayo ugu hambalyeynaya musharaxa xisbiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciiro iyo gudoomiyaha xisbiga Ali Xaaji Xasan dhammaan saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani meel kasta joogaanba iyo dibadba ciid mubaarak baan leeyahay iyo taageerayaasha mucaaradka wadani meel kasta joogaan mubaarak baan leeyahay dhammaantoodba. marka intaa ka soo gudbo chance-kan qaaliga aan ugu faa'iideysanaya waxaan leeyahay madaxweynuhu wuu dadaalay wax badan buu qabtay badanna waddanka uu soo halgamay doorashooyin la taaban karo weligeed Somaliland markii ka dhicin ayuu qabtay. waxaa leeyahay madaxweyne sida taariikhda baadhabo qabasho badan oo taaban kara waddankan marka hore uu soo qabtay doorashadan xilligeedii ku qabo si aad taariikhdu baadhabo ugu gasho. gudoomiye waxa tahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Ilaanta Hoolan dhawaana waxaad ka baxday xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. haddana sidaas oo ay tahay wareysiyada aad bixiso runtii waxaad aad uga hadashaa madaxweynaha iyo wax qabadka uu qabto bal halka shacabka uu iftiimiyo diraadadu maadsan tahay maaha mucaaradadu maaha inaad wixii qabto dowladda ay qabato ama madaxweynuhu qabto waa in la bogaadiyo oo la sheego wixii aanay qaban ee dhaliishu ay tahayna waa in la sheego la dhaliilo oo laga hadlo. marka wixii qabto madaxweynuhu waa in lagu bogaadiyo golihiisa wasiirada dowladda waa in lagu bogaadiyo weeyaan siyaasada maaha mucaaradnimaduna in wax kastoo ama la qabtay in la daftaariyo ama la leeyahay oo qaban xisbi ahaana mucaarad ahaana haddaan xisbiga wadani ahayna waxaan aaminsanahay madaxweynaha ka soo jeeda qoyskiisa ayaana codka ka doonaynaa ma doonayno in la yidhaahdo maxay xisbiga waxbuu caayaya waxbuu maagaya wixii waddanka la qabanayay ma arkayo wixii waddanka loo qabtay madaxweyne iyo dowladdu qabtay xisbiga qabtay waa aaminsanahay waananu sheegaynaa si asagana hadhow tuule aan naloo odhan maxay qaban oo aan wixii aan qabanay aan loo tusirin